السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودياشا قيمها قدرلتا إيا قايها إليغا مدلو ميلو البواد جوگتالي مرحلة البواد لغو داولي سالو حيلو هود دكالي لهي وقتغو هايدي وعلادو soo dhawaada saaxiibayaal waa qaybtii labaad muuqaal ay lagu hadleelo maafiyada adduunka ugu halista badan waa maafiyada Yakuza la yiraahdo. dabcan qaybtii hore waxaynu kaga soo hadalay kooxdan ay tahay koox aad u halis badan isla markaana ay yihiin kuwa ku kala faafsan dunida dacaladeeda oo idil iyo in ururkan uu yahay mid sharcigiisa ugu muhiimsan ay tahay aamusnaanta iyo in ururkan xubnaha ka kooban ay gaarayaan boqoraalka kul ee qof badi dhammaantood ay yihiin kuwa u badan isku ehel oo marka ay isku yeerayaan ay badalaaba isugu yeeraan erayo ay ka mid tahay walaal, aboowe, abaayo, adeer, abti iyo kuwa la mida. haddaba daawadayaal ku soo dhawaada macluumaad kale oo ku saabsan kooxdan Yakuza ee aadka u halista badan. balse daawade intaan muuqaalkeenan guda gelin aan ku xusuusiyo in muuqaalka aad laagi loo saarto si muuqaalku uu gaaro saaxiibo fara badan. mahadsanid. qof walba oo ka mid ah kooxda Yakuza waxaa la sheegay in si adag ay u aaminsan yihiin maamulka kooxdooda oo xitaa haddii qofka lagu yiraahdo isdil waxaa suurtagal ah inuu laftiisa isdhaafiyo. waxay u kala qaybsamaan cutubyo aad u fara badan oo qaarkood xitaa waxaa la sheegaa in aysan garaneyn kooxda kale. shaqadooda waa ka ganacsiga maandooriyaha, isku gudbinta iyo kala iibinta hubabka sharci darrada ah, shirqoolada iyo ka ganacsiga dumarka. Yakuza waxaa la sheegaa inay yihiin dad aragti ku midoobay waxaana ay ka kooban yihiin mid walba oo bulshada ka mid ah oo ay qoyskiisii iska soo ceeriyeen. waxaana la sheegaa inay yihiin mid ka mid a kooxaha maafiyada ah ee ugu awoodda iyo lacagta badan dunida. ururka Yakuza in daafaha dunida oo dhan uu ku faafo iyo in la ciribtiri waayo waxaa sababtay in ururkan uu dhisan yahay in ka badan 4 qarni iyo in ururkan uu yahay mid hadba la jaanqaada isbeddel walba oo ka dhaca dunida ee dhinaca tiknoolajiyadda la xiriira. sidoo kale ururka sharciyadiisa ayaa ah mid aad u adag. qof walba uma sahlana inuu ku soo biiro ururkan, sidoo kale qofkii ku soo biiraana kama uu bixi karo ururkan si kastaba ha qaadatee. waxaa taasi kuu sii dheer in qofkii qalad galaa oo ka tirsan maafiyadan ama xitaa ku kaca fal khiyaano ah inuu wajahayo ciqaab aad u daran, taasi oo ka dhigan in qofkii ka tirsan kooxdaas oo u gacan galaa booliiska ama laamaha sirdoonka oo dhan inuusan bixin wax sir ah sababo la xiriira inuu ka baqayo ciqaabta ka dambeysa iyo suurtagalnimada in kooxdan ay la shaqeeyaan siyaasiyiin oo xitaa suurtagal ay tahay in ciqaabtiisa uu maro isaga oo gacanta ugu jira laamaha sirdoonka. inkastoo qaladka qofka uu galaa ay ku xiran tahay ciqaabta uu marayo, haddana waxaa la sheegaa in dad fara badan oo ururkan ka mida oo lasoo qabqabtay ay yihiin kuwa ka go'an mid ka mida farihiisa gacanta, taasi oo uu qofka ku waayey qalad uu ka galay kooxda. xubnaha ururkan waxaa lagu tiriyaa inaysan jirin amaba ay yar tahay adduunka waddan ka mida oo aysan joogin xubin iyaga ka mida. waxaana tan ugu yaabka badane ay tahay in xubnaha ururkan qaarkood ay maamulaan ganacsiyada adduunka, gaar ahaan kuwa aan sharciga ahayn. haddaba daawade haddii aad ka hesha muuqaalkan oo uu ku cajab geliyey laag iloo saar siina sheergaray oo saaxiibbada la wadaag. mahadsanid.